اوكي caawa cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay waa trading plan maxaa yeelay suuqan kama ganacsi karta adigoo lahayn qorshe ku diyaarsan marka qorshahaas waxaa u qaybinaynaa laba qorsho oo waxaa la rabaa inaad u qaybiso trading planka labo midna waxaa la dhahaa lifestyle qasab waa inaad iska dhistaa lifestylekaaga kadibna lifestylekaaga markaas ka dhistid waa inaad plan u leedahay lifestyle plan iyo trading plan labay kala yihiin laakiin waxaa la rabaa labada bayna isku qabatid aad ka soo saartid hal xabo oo kuu qaas ah waa qasab maxaa yeelay isma keenayso haddaad trading plan kaliya degsatid aad noloshaadan ay ku lahayn plan marka number one trading planka waa inaad ka bilowdaa lifestyle waxa ugu muhiimsan waxaa waaye lifestyleka waa inaad dhistaa tusaalahaan lifestyleka waxaa ka mid ah waxaan rajaynayaa muuqaalka marka kusoo ceshatay inaad mid kuu qaas ah diyaarsan doontid maxaa yeelay qof kasta waxa training plan u qaas ah meeshuu joogo waddankuu joogo gobolkuu joogo inuu ma shaqeeya arday miya qof kasta waxaa rabaa ma ahan inaad hal training plan aad keliga qaadid waxaa rabaa inaad training plan kuu qaas ah keliga aad fadhiisatid aad degsatid marka caawa wuxuu ku saabsan yahay training plan sida u degsan lahayd waxyaabaha laga rabo inaad degsatid kadib adiga la rabo marka inaad excel iyo qofka sida ugu fiican yahay maxaa la lahaa diyaarista adiga laga rabaa marka number one waxaa ka bilaabanaa markaad trading plan diyaarinaysid number one waxa ugu muhiimsan waxaa waaye inaad lifestyle ayadana u leedahay trading plan lifestyle inaad u leedahay trading plan number two waxay noqonaya trading marka tradingkaas si kala saaraynaa tradingka maxaa hoos imaado tradingka waxaa hoos imaado kow waxaa ka mid ah sessions waa inaad sessions waa iyadana waa muhiim sessions farta qalinka ameenka iyo dulqaata sessions number three waxaa ka mid ah qorshaha tradingka waxaa ka mid ah time frames iyaduna waa trading plan waa arkaynaa sida lasla dejiyo kuwaan hal u istaagaynaa time frame number four waxaa muhiim ah waana kan ugu muhiimsan news adiga news ma ku trade garaysaa waa inaad u leedahay maxaa la lahaa inaad qorshe u leedahay waa newska number five waan kusoo gowgeynaa entry sidoo kale waxaa raaci kartaa and management entry and management waa idina inaad trading plan u leedahay entry iyo management waa inaad idina trading plan u leedahay hadda marka hal u istaagaynaa sidoo kale waxaa jira table yar oo inaan sharxo oo ku saabsan markaan istaagayna entryga wax yar table idin sharxa laakiin lifestyle maxaa lifestyle lifestyle waxaa kow ka ah subaxda xilligaas oo ka isticmaal maxaa yeelay waa inaad trading plan leedahay lifestyle tusaale ahaan qof haddaad tahay qof ganacsada waa inaad waqti ku qaasa habeenka aad seexan kartid waqti ku qaasa subaxda inaad soo kici kartid waa inaad isku qaban kartid sessionada tusaalahaan haddaad tahay qof trade gareeyo asian session waa inaad asian session soo kacdaa subaxda liseedi waa inaad soo kacdaa marka lifestyle waxaa ka mid ah xilliyada aad waqtigaa soo kicisa waa kow waa muhiim sidoo kale adiga maxaa tahay arday maa tahay maxaa tahay qof shaqeey maa tahay qof aabba maa tahay hooyo maa tahay waa idina waa inaad qorshe u degsan tahay hadda marka tusaalahaan aniga waxaa lifestyle ku jira xilli jimka aad isticmaal subaxda camal haddaad tahay qof oo trader ah waxa u fiican inaad jimka aad subaxdii oo kale habeenkii oo kale marka waxyaabahaas kale waxyaabaha muhiimka tusaalahaan sessionka markuu dhamaado camal maxaa caawa maxaa kuu qaasay idina waxaa la lahaa lifestyle la taas waxaa la rabaa inaad adiga degsatid aad table yar u samaysatid aad degsatid qasab waay ha ka boodin hadhihin aniga waxaas wax muhiim maahan oo session aad toosu aadaa waa qasab inaad lifestyle aa u leedahay midda labaad waa session dad waxaa jira hal session tiragaraya asxaabteeda badanaa waxay tiragarayaan new york session hal session laba session afarta session waa tiragaray kartaa laakiin waa inay qaas u yihiin haddaad tahay qof afarta session tiragaraya maalin kasta afarta session tiragaraya ha aadin maryland session ha aadin maalin dambe new york session ha aadin inta aadin session marka taasoo kale waxaan keliya hadal maaha waxaa la rabaa inaad qortid aad table yar aad samaysid aad ku degsatid derbigaaga maartay meesha fariist computerka meesha yaal derbiga inaad ku dhisatid waa sessionada marka london session oo kale haddaad tahay qof trade galay london session hadduu kuu furmo qofba xilli u furmaa haddaad yurub joogto haddaad soomaaliya joogto haddaad america joogto marka xilliga kuu furmaa muhiim hadduu tobanka kuu furmo london session tobanka hadduu kuu furmo lama rabo inaad tobanka soo kacdaa aad isla marka ku buuddaa computerka taasoo kale waxay ka mid tahay lifestyleka iyo sessionka laisku qabtay tusaalahaan xilligan oo kale waxaa soo kaca before 1 hour intaad qof hurdaa tahay intaad qoysanaysid intaad quraacnaysid waxaasoo dhan markaa isku qabatid 30 minutes before session inaad computerka fursaa rabaa aniga tusaale ahaan haddaan london session every day 30 minutes before intuu sessionka furmo ka hor
computerka hor fadhiya marka haddeed macnaheedu maahan soddon daqiiqo soo kaca maahan waxaa ku daraa xilligan quraacna xilliga qoysanaya waxaas oo dhan waa isku daraa marka sessionka waa inaa waqti u leedahay haddaad tahay qof trade garaya hadda qofkii maraykan jooga camal new york session maxaa london session waa xilli dambe ku tahay oo afarta habeenimo camal ay tahay marka new york session kaliya trade garay kartaa new york session kaliya trade garay haddaad tahay qof dibadahaas joogo marka iyadana waa muhiim session sida loo dejiyo waxaa tablekayga waa tustoona laakiin waa maahi qof ku fiican mihi it-gii waxaas marka waa isku dhex yaacsan yihiin trade blankayga adiga marka laga rabaa si u qoran lahayd degso waxaanoo kale sida u qoran lahayd adaa la rabaa marka trade plan marka lagu leeyahay waa written waxaa jira waxa leeyahay oral iyo written qasab waa inuu noqdaa wax written ah meel kugu qoran ama buug ku qoran haddaad tahay qof buugagta aaminsan buug yaroo A4 yar ku qoro meel dhigo haddaad tahay qof PDF aaminsan PDF ka samayso haddaad tahay qof derbi wax ku dhigsan derbiga ku dhigsan waa qasab 3 time frame midna maaha kaliya trading maaha sidoo kale waxay khaas u tahay markaad tahay trading plan markaad soo baratid all sidoo kale time frame maxaa hoos imaada bears waxaa kaliya doorataa bear ku qaas ah tusaale ahaan haddaad tahay qof GBUSD ku taragaraya yar gold haddaad ku taragaraysid gold kaliya dooro laba lacag dhib ma lahan adiga hadhihin qofkan hal lacag ku taragaraya 3 lacag ilaa 4 lacag waa ku maya 4 macquul nahan 3 2 1 waa ku taragaray kartaa 3 beer waa qasab laba beer waa okay hal beer ugu fiican halkaas beer waxaa rabaa inaad dooratid time frame ku qaas ah tusaale ahaan time frame maxaa ka mid ah haddaad tahay qof shaqeeya marka trade plan marka kuleha waa inaan trade plankaaga uu yahay qofku ka duwan yahay ardaya jiro arday jaamacad dhigta jiro arday qof waxaa jiro oo subaxdii shaqo aada marka time frame kan waa variable uu kala duwan yahay marka qofkii shaqeeya camal maxaa time frame ah 1 day 4 hour not again marka waxaan ka hadlaynay time frame haddaad tahay qof shaqeeya tusaale ahaan waxaa ku qaas ah time frame 1 day iyo 4 hour labadan time frame ku noqdaan time frame ku qaas ah kadib entry maxaa ku qaas ah 15 minute entry ka gal mise waxaa ka gashaa 5 minutes maadaama aad tahay qof shaqeeya oo 1 minute ma ag fadhi kartid maanta oo dhan 1 minute inta aadan waxaa ku qaas ah saddexdan time frame haddaad tahay qof shaqeeya markaad tahay 3 time frame ku qaas ah waxaa soo haray dadka jaamacadaha dhimeeyay dadka baagumudo dadka raba inay maxaa yeelay trading kama dhigi kartid career kama dhigi kartid ilaa aad noqoto full time trader waxaa jira inaad dadka badanaa marka trading plans waa inaad tahay qof part time maxaa lahaa trading ha ka dhigin meesha ugu horeysa kaasoo number 1 income lagama dhigto trading number 1 income ilaa aad qof consistency qof lacag ka shaqeeya marka the first 6 months waxaa tahay qof shaqeeya oo lacagtina meel kaa soo gasho u baahan tahay lama rabo inaad guri iska fadhisid marka markaasoo kale waxaa ku dhibaatoon doontaa maxaa la lahaa time framid waa ku dhibaatoon doontaa laakiin marka kasoo gudubtid consistency marka kasoo gudubtid aad tahay qof oo consistently trade gareeya markaasoo kale waxaa ku qaas ah time framida 4 hour sorry waxaan isku dhaxaasiyeen time frame 4 hour 15 minute iyo 1 minute entry galis iyo 1 minute entry galis time frame ku qaas ah marka tahay qof kasoo gudbay consistency level kasoo gudbay marka tahay time frame ku qaas jira marka sidoo kale news waxyaaba ugu muhiimsan suuqan dad waxay ku leeyihiin smart money aniga news wax naga galin oo maxaan ahayn qof oo dad iskaal baranaan qof kaliya 10 bibras news waa qasab waa ina ogaataa newsada maalin kasta subaxda markaa soo kacdo waxa ugu horeysa afurays waxa kamid ah aniga news waxa uu isticmaalaa barnaamij leeyahay forex factory subaxda markaan soo kaco waxa ugu horeeya aan sameeyo waxa waaye forex factory ku boodaa tusaalahan waa kana forex factory subaxda markaan soo kaco waxa ugu horeeya aan fiirina waxa waaye forex factory tusaalahan maanta kale waxay ahayd maxaa lahaa maanta kale waxay ahayd arbaco kale waxa iska fiiriyaa maxaa jiri kara news sidoo kale meesha waxa iska fiirsaa time waa muhiim timeka waxa ugu muhiimsan adiga iska fiiri timeka ay ka dhigo wadanka joogto timekiis ka dhigo marka subaxdii intaana furin trading view wax ugu horeysa aan furo waxa waaye aniga waxa la leeyahay forex factory sidoo kale waxa jira mid kale leeyahay fx way badan yihiin waxyaabaha newsada laga aqriyo investing.com laakiin kana ugu fiican kana the best marka newsada maxaa loo kala garan karaa hadda aragtid news inuu yahay
هدا أرجت إنه يهاي this folder yellow folder وحلاقة وده و small عمل news yes news لكن و small news wax weyn ma lahan wax impact badan ma lahan impact badan waxa ku soo haray kalarkan oo kale kalarkan waxa la dhahaa brown oo kale waaye brown ma ahan adigu waa gudud bb kalarkan oo kale waxa la medium impact oo waxa yaalo ma ahan ki news saaid weyn ma ahan sidoo kale news yar sida kan jaalahan oo kale ma ahan waa news dhaxdhaxad ah waxa ku soo haray ugu muhiimsan waa red folder waxay kamid red folder waxa wax isku hayaan sidoo kale kan waa iswan ku haya oo marka trade laakiin kuwa indhaha isla markay qabanayaan waa red folder waxa laga wadaa waa news weyn oo soo bixi doona sidoo waxa kamid ah NFB form sidoo kale waxa kamid ah CBI badbadihii marka waa ina isha ku haysaa newsada sida loo talagalay aniga waa smart money waa hada waa la baran karaa waxa jira si news loo talagalay laakiin aniga waa iska ilaalinaa marka waxa newsada waxa imaan doona maalmaha newsada waxa imaan doona maalmaha trade waxa saameyn ku yeelan doona maalmaha trade gareys sidoo kale waxa arki doontaa hal mar newsada igu celi waxa rabaa maalinta Friday rabaa okay jimcaha news way ma jiro laakiin aniga waxa badanaa waxa hoos imaada newsada maalmo Friday kale waa biggest impact newsada ugu weyn maalmaha subaxan waa Friday taasoo kale trade plan waxa kamid ah maalmaha Friday ani maba trade gareeb ama news yuusan jir hatta saalaan isbuucan waxa aragnay Friday maalinta Friday inuusan wax news jirin kuwana kale waa shanta galabnimo waxa soo bixi doona mid iska medium ah laakiin wax weyn saameyn weyn kuma yeelan doono marka newsada kale waa inaad trading plan u leedahay maalmaha newsada soo bax maalmaha ugu badan waa Friday sidoo kale New York session waa marka ugu badan ee newsada soo baxa New York session hadaa aragtay newsada 9 saac bar 4 bar xiliyaas kale soo baxan anigoo kale isbuuci waxa ku jira 7 days waxaan trade garayaa 4 days sidoo kale waxaan baraanka joogaa 3 days forex waxa soo gashay waa freedom ma aha lacag meel kasta laga helaa hadaa tahay qof dawladdu hadaa tahay qof meel kasta lacag taala laakiin freedomka marka forex ku jirto freedomka meesha taala waliga helmaysid kawaran 3 hours a day 4 hours a day ashaqeynay maalmaha kale nafasaxta sidoo kale lama rabo inaad shanta maalin oo days inaad soo taagnaatid maalmaha qaar maskaxda waa la degsiyaa anoo kale Friday badanaa ma trade gareeyo badanaa ma xataa waa biska la Friday waa isbuuc xun haduu yahay Friday kale isbuuc ku xada haduu isbuucan oo kale yahay isbuuc madax wareer aan 2% mise percentage ma baqan bana loo isku jiro amal markaas oo kale Friday waa laga yaabaa inaan fariisto haduusan news jirin waa laga yaabaa inaan fariisto Friday laakiin badanaa iguma dhacdo oo Friday waa kala tagnaa Monday sidoo kale Monday xataa London session badanaa ma trade gareeyo oo London session waxaan fiiriyaa suuqa wuxuu sameyn doonaa gaabyo sameyn doonaa weekends marka London session suuqa way istoosinaa sidoo kale isniinta kale xataa maalmaha ugu jeclahay aniga trading waa inaan ku dirsataa trading plan muuqaalkan uu duuban yahay ku cusub meel kasta istaag waxa sameeysaa Excel mise Notion mise waxyaabaha soo gale sameeyso wax yar trading plan sameeyso marka ku cusub hadda laakiin dhageyso maalmaha kale marka maalmaha dabeecadaha kale tusaalahan isniinta kale ma aragtay isniin kale suuqa istoosinaya suuq maxaa yeelay jimcaha badanaa ma dhahay maalin kasta every Friday waxa soo bixin news sida form CBI marka CBI da kale waxa sameeyay suuq saan iska aha hal mar waxa sameeyay doona saac toos saan u soo dhaca jihaadadan suuqa qalqalda isniinta kale suuqa waxa dhacay oo istoosina oo wuxuu sameeynaa jihaad saxan wuxuun buu isku toosnaa mise hoos soo socona marka talaadada kale waa ogaa kartaa jihada suuqa u socdo isniinta ku sheegayso marka talaada iyo arbaco iyo khamiis waa maalmaha la lahayo trending days trend waxa la hadii isniinta ay noo sheegto inuu suuqan kor aadayo tusaalahan isniinta waxa sameystay church SMS isniinta hadii church samaysatay ee meeshaas ku xirmay talaada waxa sameysmi doono sidana sameysmay khamiisna sidoo soo socdo doonta jimcaha waxa dhacay reversal lays dabeecadaha lacagaha kala yihiin badana euro USD ana saas ku arkay adii marka hadaa tahay qof trade gareey GBP USD dabeecadaha soo fiir maxaa dhaco maalmaha maxaa ka dhaco isniinta kale maxaa dhaco khamiista kale maxaa dhaco waa inaa fiirisaa qasab waay waxa ugu muhiimsan anoo kale hadda sababta uu aad lahaysana GBP USD bariyahan dadka wax lacagta la garaacayo maanta kale waxa marina Marso kale lacagaha saaid loo garaacayo waa GBP USD dadka badanaa lacagaha garaacayaan waa GBP USD maxaa yeelay waxa arki doontaa euro USD inay noqoto bullshit inay noqotay euro USD meel u socoto meel kale lama kala garanaa waxa u jeedaa inay maanta kale soo dhacday yes laakiin haddana
ماشي أنا كلمت ما أنت تريد وأكسو جاي لكن نما وان من دافيرس ماس نسين تريد أبو صالحان ماشي أنا كلمت waxaa dhacay George wax kasta dhacay nama siin wax inta ka galno laakiin saaka trade soo qaatay selka hadhow ka hadli doona sida soo qaadan hadda laakiin waxaa laga rabaa inaad lacagta hadda aad dooratid haddana aan la joogo casharada dhan waa soo daabatay waxa labaad laga rabo waxaa waa inaad lacag dooratid lacag waxaan ka wadaa inaad dooratid waxaa jiro saddex beer waxa qof kasta waxaan kula taliyaa inay saddex beer kula taliyaa euro USD GBP USD AUD USD haddaad weli wax dooran aad aday ku taala waxa dooran lahayd laakiin aan waxa kula talin lahaa inaad dooratid GBP USD kale waa lacag bariyahan si aad u dhaqaaqayso aniga laakiin dabeecadaheedu waxay u qaado inaan waqti barto oo sabti hadda kale waa qorsheysata inaan GBP USD AUD USD iyada sidoo kale way dhaqaaqaysaa bariyahan dhaqaaqa ku socota euro USD muxmo oo waa friendly waxa ku jeclaada waa friendly lacag friendly leh lacag soo dhaweyn fiican bibski spreadkeedu ma yaryahay waa lacag ugu spread bar lacagaha waa 0.2 marka GBP USD waxa arki doontaa inay tahay 0.5 laakiin wax farqi weyn uma dhaxay 0.2 iyo 0.5 adaa laga rabaa marka lacag doorashada wax ugu muhiimsan markaa ka gudubtid barashada markaa ka gudubtid waa inaad lacag doorataa dooqaadan lama rabo inuu qofku saameeyo qofkan macalinka kale wuxuu ku talagalayaa gold ku talagalaya inuu gold aada maya qasab maahan anoo kale hadda nimanka khaaska ka soo bartay waa niman ku talagalaya lacaga kale AUD USD GBP USD euro USD anaa doortay anaa si qaas u doortay euro USD maxaa yeelay waa lacag friendly leh sidoo kale GBP waa idin maxay oo GBP markaan bilaabo waa lacag ku talagalay bayriska waa qaas marka waxaa laga rabaa trade balanka inaad ku tirsatid bayriska oo idan inaad ku tirsatid waxa ku soo haray entry and management hal mar waxaa rabaa inaan sabar yar shar galay oo entry and management entry waxaa ka mid ah maxaa ku entry galaysaa xalay soo aragna entryadana haddii lagu sii waayo labadaas entryada xalay soo aragnay haddii lagu sii waayo gal entry kan management waxaa jiro saddex management jiro hal mar marka waxaa share galay doona sawirkan share galay doona okay sawirkan waxaa soo dhigay academic phantom soo dhigay ani malihi laakiin wax badan ka fahmi kartaa wax badan oo sawirka ku sheegi doona waa sida uu sameeysan lahayd trade plan hada marka trade plan maahan entry plan entry kii ugu dambeeyay mawduuc ugu dambeeyay marka waxaana kale waxaa rabaa inaad sawiradaana kale waxaa laga rabaa inaad kugu dhigsan yihiin darbigaaga waa qasab inaad buuxisid marka maxaa ka mid ah BOI tusaalahaan trade waxaa qaadanaa saddex afar siyaabood number 1 waxaa la waa inaad soo heshaa BOI sax number 2 waa set up number 4 number 3 maxaa la waa entry number 4 waa management target hal mar waxaan ku laabanaynaa waa maxay BOI dan waa erey mar BOI waxaa la lahaa supply weyn tusaalahaan supply-ga waa supply weyn trade ma qaadi rabtid supply-gana kale waxaa la lahaa BOI point of interest la soo gaabay BOI point of interest waxaa laga yaabaa meeshan adiga trade ma galaysid laakiin waa meel haddii lagu imaado aad 1 minute confirmation waxba ka qaadi doonto waa haddii lagu imaado laakiin marka ugu horeysa meeshan wuxuu ku tahay point of interest oo marka lagu imaado kadib waxa karaadi doonto markii lagu imaado kadib waxa karaadi doontaa entry criteria hadda entry kuma ahan waa point of interest waa markii lagu yimaado marka point of interest maxaa noqdo higher time frame noqdo 4 hour iyo 15 minutes supply zone waxaa dhahnaa point of interest hal mar marka sawirkan ku laabana marka maxaa BOI maxaa noqon karaa BOI waxaa noqon karaa number 1 waxaa lagu dhahay waa minimum inay tahay 15 minute time frame waxa ugu hooseeyo haddii no haddii noqoto waa BOI waa fake haddii yes tahay waxa aaday kan labaad aaday haddii yes tahay kan saddexaad aaday haddii yes tahay kan afraad laakiin hadda hal mar hal noo ku soo gasho waxaan dhan waa automatically waxay noqdeen wrong ay noqdeen haddii hal noo ku soo gasho marka number 1 maxaa la dhahay BOI-ga ma yahay 15 minute iyo wixii ka weyn minimum waxaa la meesha ugu yar aniga BOI waa 15 minute waa marka kule high time frame kan waxa ugu yar 15 minute ugu yar adiga 1 minute hadhihin 1 minute kana waxay tahay point of interest oo markii la iimaado kadib waxaan ka raadinaa George iyo Philip maya George iyo Philip markii high time frame lagu iimaado kadib baa ka raadinay marka number 1 maxaa dhahnay minimum 15 minute okay way tahay number 2 maxaa lahayd buy to sell engulfing ma yahay buy to sell engulfing maxaa laga wadaa waa wareeg haddana xagga meesha kale wareegana haddana buy to sell candle-kii ugu dambeeyay ma yahay buy to sell engulfing hatta fiiri iga tir waxaan oo dhan hal mar iga tir
فيري باي تو سيل وحالها انجلفن كاندلكي بي اي كوها كاندل كحجي ما انجلف غري اسد معنا ملقي يس كاندلك بي اي كوها وانه كوين يحي ما كان كواد وكان لباد انه كوين يحي انجلفن وحالها كاندل ير ان لبوخيو الله ان لبوخيو marka waa u jeedaa engulfin ma yahay yes kii kale waxay buy to sell ma yahay maxaa dhahna demand waa inuu yahay candle sell sidoo kale supply waxaan dhahna inuu yahay candle buy hadda marka iyo ayna ma yahay buy to sell ma sell to buy is to be waxa la sell to buy ma yahay sell to buy oo sidoo kale engulfin yes oo sell uu noo yahay sidoo kale engulfin ma noo yahay mala engulf garay engulfin waxa la candle ku xiyo ma buuxiyo yes waa la buuxiyo marka bartu idina waa yes engulfin sawirka labaad nagu xil sawirkeena engulfin ma yahay yes uu yahay number 3 structure break of structure ma sameeyo break of structure yes uu no sameeyo maxaa yeelay break of structure aniga stabilizer no ma noqot without break of structure number 3 waa break of structure idina waa sax number 4 labadan waa isku mid leeyahay number 3 ما يهي is to demand flip كم waxa laga yaabaa supply to demand oo mise demand to supply flip baa laga wada xalay soo almay ma yahay supply oo demand zone jabiyay mise demand zone supply zone ma yahay yes iyana waa soconayna codkan qofka soo gala codka xirtaya number 4 liquidity ma leeyahay yes liquidity oo leeyahay number sidoo kale liquidity inducement mise waxaas ma yahay yes wuu yahay kan ugu dambeeya maxaa lagu leeyahay BUI well priced waxa laga wadaa basically markaan arkaynay discount and premium tusaalahaan waxaan dhahnay discount and premium markuu saan yahay sell candle buy kaliya meeshaan ka galaynaa sell waxa galaynaa markuu korkaas joogo marka BOI ga ma yahay meel well priced waxa laga wadaa discount iyo premium meesha discount mujooga misbel okay BOI sax waa soo helnay hadda BOI sax waa soo helnay number 2 no shit maxaa yeelay kama soo galo zoomkayga lacagta zoomka aan gatay kama soo galo zoom kale khaldana soo galo email khaldan marka uu go'ay raba waa wadanayna number 2 maxaa lahayd setup waxaa lahaa markii BOI lagu imaado kadib maxaa raadinay George Philip waxyaabaha raadinaysa waxaa lahaa setup hadda marka setupka maxaa ka mid ah horta BOI ga ma ku saxmay waa kan waxaan markay soo saxmeen yes BOI sax waa soo helay trade-ka ma yahay BT waxa la soo gaabiyay pro trend is counter trend salahan qofkii qaadanaya ana waxaan badanaa waxa qataa pro trend trade jihada suuqiisa raacsan trade-kan pro trend ma yahay hadduusan ahayn George salahan trade hoos u socday hadduu hoos u socday George ma heshay hadda hadduu yes yahay the next one aadi laakiin hadduu no yahay waa inaad George heshaa salahan suuq kor u socday iskama galayis basel kama soo galayis waa inaad George heshaa haddaadan George helin ad korka u siraa hadda marka waxa pro trend ma yahay ma ahana dhahday haye okay hadduusan ahayn waa inaad George heshaa George ma helin maahno waa inaad heshaa supply to demand waxa la lahaa SD flip waxyaabaas waa inaad heshaa sidoo kale liquidity markasta waa qasab liquidity inaad heshaa sidoo kale liquidity maxaa ka sii muhiimsan waa in liquidity sweep lagu sameeyo la qaada tusaalahan trade-ka hadduu siiyo double top hadduu siiyo mise inducement hadduu siiyo inducement haddaan la qaadan inducement wax igama galaanay inducement maashi liquidity maashi yes waa helay kan ku xigo inducement sweep lagu sameeyay ma la qaaday yes waa la qaaday George-ka masaxan yahay SD demand failure ma dhacday Philip ma dhacday supply to demand ma dhacay okay waxyaabaha inta isweydiis waa trade inta hadan galeen waa in isweydiisaa kan saddex kan kale entry marka galaysid entry hadda waxa soo heshay maxaa la lahaa BOI sax waa soo heshay sidoo kale confirmation entry 1 minute waa soo heshay oo set up waa soo heshay hadda marka entry laga rabo marka entry maxaa qaadanay reaction before failure hadda demand zone joogto demand zone ka supply zone mujibi hadda supply zone joogto supply zone demand zone mujoogto waa basically waxa xal soo marna waa before failure Philip ma dhacay yes Philip buu dhacay Philip kan liquidity ma qaatay before iyo after waxa ka madnaa tusaale ahaan Philip markuu baxayay liquidity ma qaatay ma muusan qaadan hay'ad soo laabashiis waa inuu qaataa maxaa dhahnay graph liquidity intuu san bixin mise markuu soo laabanaya labadaas mid qaatay before iyo after reaction okay waa soo heshay hadda marka entry waa qaadatay maxaa ku soo haray target
entry aniga badan waxa ku galnaa okay waxaan ka tagay hadduusan intaan ku siinin waxaa ka qaadanaya extreme-ka qaadanaya extreme maxaa dhahnay extreme waxaa waaye mise decisional haddaad yes labadan yes ku tahay waxaa ka qaadanaya decisional qaadanaya haddii no ku tahay waxaa qaadanaya extreme hal mar marka igu celi waxaan ku laabanayaa extreme aadan tusaya decisional waxa laga wado basically extreme decision waxaa laga wadaa diman zona joognaa waa qalinkii zoom ka go irabo waa ka xumahay zoom email qaldan soo galay okay diman zona high time frame amay hal mar waa qurxinaa inaan ka gaarsiiyaro waxay raharay waxaan imaanay diman zona high time frame amay diman zona marka timad maxaa rabnaa Philip arna Philipka supply zone ha taabto supply zone ka soo laabto ha baxo okay meeshan waa supply zone waa supply zone waa ka gaarsiiyay waa meesha maxaa dhahnay Philip markuu ku sameeyo Philipka waa inuu leeyahay liquidity markuu baxayo waa inuu liquidity leeyahay hadduusan lahayn liquidity soo laabashadiisa liquidity ku abuuro soo laabashadiisa tusaalahaan ha sameeyo inducement ha sameeyo waa ka qaadanay kanoo kale waxaa la decisional la lahaa hadduusan liquidity ku siinin xagee ka qaadanay extreme waa kana waa meesha ugu hooseysay suuqa without mitigation kana ka qaadanay extreme ka qaadanay hadduu liquidity ku sii waayo Philip hadduu liquidity ku sii waayo extreme ka qaadanay waa boosini waxaa ina ka gaarsiiyay rabaa oo zoom ka goro extreme ka qaadanay laakiin hadduu ku sii waayo decisional hadduu liquidity ku sii decisional ka qaadanay okay sawirkeena ku laabanayna maxaa ku soo haray target ku soo haray target waxaa dhahnay saddex target jiro target grade doontid tusaalahan trade court ku yahay pro trend pt waxa la soo gaabay pro trend sawirkan waa sawir muhiim ah oo soo diri doona 15 minute trade ka soo qaad waxa target grade doonta 15 minute pro trend ko sidoo kale 4 hour waa target grade kartaa waxaa jira saddex target hal mar waxa idinku tusiyaa meesha kale ku qoray targetada maxaa dhan marka ka soo hadlayna waxaa jiro saddex target koowaad oo trade marka gashid waxaa target garaysaa the next high time frame maxaa yeelay trade high time frame ku soo gash maana the next high time frame supply target gareynay ko waa target ugu muhiimsan aan trade ka qaadano number 2 waxaa target gareynay week high iyo week low tusaalahan suuqa muxuu ismita higher low marka xaggan marka trade marka xaggan qaadid maxaa target gareynay waxaa target gareynay higher gana lower gana target gareynay maxaa no trade marka korkaas ka soo qaad salahan korkaas hadaad sel ugu soo qaad waxaa target gareynay low gana target gareynay maxaa waa week maxaa week ka dhigay wuxuu qaadi waa high ga soo qaadi waayo number 2 target kana waa sameyn kartaa week high week low iyadana waa target gareyn kartaa waa ka soo hadal mawduucaas number 3 waxaa target gareynay liquidity maxaa liquidity dhahnay salahan trade as supply zone demand zone hoosa ka soo gashay demand zone markuu iimaana wuxuu sameeyay liquidity dhan abuurtay adii marka inta bay u gashid maxaa target gareynay waxaa target gareynay intaano liquidity la qaado target maxaa korka liquidity korkiisa ka dhiganay marka trade waxaa jira only saddex target jiro no other target saddex target gole mise wax kale kuma galaysid marka zoom waxaan ka soo galay kama soo galan zoomka barihan soo galay waxa ahaa zoom igadna hadda laakiin zoom qaldana soo galay oo 40 daqiiqo dhamaarta waxa sameeyna waa